ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada maantana waxaan igu soo talgalay qodbad gaaban oo ku saabsan sadaqada. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, haddii aad hore nala joogteen like saar, siina share gareey. sharaf iyo karaamo haddii aad intaas samaysay. aan gudgalna cashirkeeni lecture qodbad about ku saabsan charity sadaqada. Today maanta I have intended waxaan ku soo talgalay to suggest here inaan halkan ka jeediyo a lecture khudbad about ku saabsan charity sadaqada. As we are aware, saan wada ognahay, charity sadaqada is the third pillar waa tiirka saddexaad of Islam ee Islaamka, and it is obliged on us waa inanugu waajibtaa to pay inaan bixino the charity sadaqada. If you pay haddii aad bixiso one thing hal shay, Allah will change you, Ilaahay wuxuu kugu bedeli doonaa into more things sheeyo badan. So sidaa darteed we must perform waa inaan gudanaa the duty waajibka of the charity ee sadaqada and give it aana siinaa ayada to the poor people dadka masaakiinta ah. Bye, mac salaama.